asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodka koonfur hindi maxaa ka cusub wararka update-ka meeshii aan kaga tagnaa ka anba qaadana saaxiibayaal ciwaanka waxaan eegaynaa filimka Good Bad Ugly oo Thala Ajit Kumar hogaamiye ka yahay waxaan sugaynaa shabakada reer Tamil inay ka soo hadlaan filimka ee Soundtrack ayagana maxay dhaheen saaxiibayaal xogta macquulka oo la aqbali karo ayana soo daabaceen waxayna dhaheen content iyo kow karar ayuu keenay waxay la mid noqday marka T2B iyo Sanig iyo kulli waa is wada raaceen iyo sidaa muuqata Soundtrack maadaama content iyo kow karar lagu xaqiijiyay posterkaas noo muhiim ah ka rabna Soundtrack inay soo qaataan Ajit Kumarna uu cimaamadeen posterkii quruxda badnaa ee background-giisa dabcan ka muuqdo lacagta filimka uu soo xareeyay record global ay dhaheen waana kaas Ajit Kumar oo xarkeena suit ka xiranayo iyo content-kiisa karar ku soo qoran waa record waa markii ugu horeysay taariikh ahaan film Ajit Kumar hogaamiye ka yahay maalinkiisa kuwaad ganacsigiisa konton karoor ka tilaabo dibad idal first time ever 50 karoor Ajit Kumar oo la imaaday waa dibad idal sida shabakada caanka Soundtrack ee shaaca ka qaadeen filimkan saaxiibada qiimaha badan 34 karoor iyo gudaha Hindi ka soo xareeyay gross money-ga suuqada caalamkana 17 karoor waa la isku raacay 1.96 milyan oo doolarka Mareykanka ay u dhigmataa 17 karoor saa darteed marka konton iyo kow karoor ayuu soo xareeyay diiwaan gashan filimka Maithri Movie Makers ka leedahay career best opening ayuu Thala Ajit Kumar la imaaday marka Maithri Ajit uu la shaqeeyay wuxuu ka faa'iiday filimkiisa ugu horeeyay taariikh ahaan uu lacagta badan dibad iyo dal markay noqoto gudaha iyo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan iyo banaanka labadaba taas ayuu ka faa'iiday marka hambalyan leenahay sida hadda muuqato saaxiibada qiimaha badan filimkan si fiican u qaraabtay meel walbana waa kacsan yahay marka day 1 konton ku karar posterkan ka sugan sheenaha Ajit Kumarna waa la soo tuuray update ugu dambeeyay day 2 maxay tahay horta filimkaneeto Sri Lanka iyo horta Malaysia waxa laga daawanaa si wali saaxiiba Malaysia joogan engineerka hadda ka hor filimada daawanaya oo FJ xataa filimkiisa oo ila soo xiriiray wuxuu dhahay filimkii meelan ka daawana la anhay dad badan oo dabcan Malaysia joogan jiqwa sababta Tamilka wax kaga badan male suuqada caalamka si adag wuxuu kaga gadnaa Malaysia heestaa day 2 filimkan uu isceliyay decent waliba wuxuu sameeyay ganacsi la aqbali kara sababta maxay tahay konton boqolkii sameeyay filimada koonfur waa lagu yaqaanaa maalinka koowaad markay si waali u gadmaan maalin kale oo soo dhacay sameeyaan saa darteed marka 50% oo soo dhac uu sameeyana Good Bad Ugly waa wax la aqbali karo konton karoor hay'ad uu keena maalinkiisa koowaad maalinka labaad qiyaas ahaan waxa la filaa filimka inuu keeni doono 22 karoor ilaa 25 karoor world war gross inuu keeni doono Tamil la xitaa 50% drop uu sameeyay 12 karoor ilaa 13 karoor uu keeni doona gross money-ga all Indiana ku dhawaad 16 karoor uu keeni doona marka saaxiibayaal waxa la leeyahay filimka Good Bad Ugly laba maalmood waxay kaga dhigan tahay 73 karoor bar ilaa 75 karoor dabcan 2 days iska dhacay 75 karoor ay laba maalmood dibad iyo dal ku soo xareeyay sida muuqato Tamil la 40 karoor 42 karoor 2 days ka soo xareeyay gudaha Hindiina 52 karoor lacagta gross money ay ku soo xareeyay laba maalmood sida muuqato marka Britain soo qaadan doona insha Allah ganacsigiisa laakiin day 2 drop-kaas uu sameeyay drop-kan waa lagu yaqaanaa filimada waaweyn ee koonfur maalinka labada hoos u dhacay sameeyaan wax la aqbali karo waa filimkan wuxuu haystaa sabdi soo laabanaa axad ugu dar isniin fasaxa jiro lacagtiisa wanti ahaan uu soo celinaa sida muuqato Good Bad Ugly dhinaca kale filimka Jad aan soo qaadana sanadol hogaamiye ka yahay asigana maalinkiisa labaad waa la filay inuu hoos u dhac sameeyo maanta Jimcaha Walking Day waliba drop la aqbali karo sameeyo 20% hoos u dhac sameeyo 20% hoos u dhac waa la aqbali karaa qiyaasta xilli horena waxay muujinaysaa filimkan inuu keenay 7 karoor ilaa 7 karoor bar inuu soo xareeyay filimka lagu magacaabo Jad maalinkiisii labaad day 1 wuxuu soo xareeyay 9 karoor si box office intii dhahan shabakadaha kale waxay dhahan 9 karoor iyo bar ayuu keenay dhahan ilaa 9.62 karoor marka hadda 20% drop uu sameeyay 7 karoor meelahaas ilaa 7 karoor bar ayuu keenaa 2 days marka Jad ganacsigiisa wuxuu u dhaxeeyaa 15 karoor ilaa 16 karoor lacagta nadiifka ayaan ka hadlaynaa filimkan waxa caawinaya caawa late night shows ka sar uu ka xogan ayuu sameeyay dhammaan Hindi oo idil single screens ka laga hadlaa marka waxa la sabdi axad inuu dabcan gaari doono double digit isku ma haysto 10 karoor 15 karoor uu keeni doono afartan maalmood ugu horeys ganacsigiisa 40 karoor uu gaaray hadii adi isniin lagu daro waxa laga yaabaa in 5 maalmood ugu horeys filimkan 45 karoor meelahaas uu soo xareeyay kadib marka waxay ku xirantahay sidoo uu sii gadmi doono single screens lagu ma haysto marka sanadol filimkiisa waxa la hal mar uu hoban doonaa taas maysan dhicin marka 9 karoor 7 karoor waa accept hoos u dhacaas la aqbali karo maaska filimkan si wali looga daawanaya caawana filimka soo af Soomaaliya socda bahdana bilim media soo turjubana dabcan lagu baashaalaya kulli ani waxa la daawaday teamka caawa daawadaan commentiyada noo soo gala soo comment ra'yiina ka dhiibta ani 4 star ku qiimeeyay idinkana bal waxa ku qiimeeyeen Britain ganacsigiisa markii la fariisiyay insha Allah
waa soo qaadan doonaa saaxiibayaal markaa ninkii Barabas ahay directorka saaxiibada ay yihiin lagu magacaabo Sandeep Reddy Vanga wuxuu dhahay waxba hawlwalin ballanka aan ku siiyay iyo taariikhda aan ku qoraba waa diyaar u dhahay waxba ka fikirin aniga waqtigan ballanne Sandeep Reddy Vanga diyaar ah sababtoo Sandeep Reddy Vanga walaac xoogan hay saaxiibayaal filimkii Raja Saab ilaa hadda Barabas ma dhameystirin Fawuji ayuu duubaa dabcan hanuu iska leeyahay sidoo kale xilligii lagu ballamay in la bilaabo filimka Spirit waxay ahayd bisha June ama May in la bilaabo marka Barabas wuxuu dhahay Sandeep Reddy Vanga waxba walaaca qabin aniga wuxuu dhahay waqtiga ii baatay diyaaran ahay filimka shaqo oo guda gali doona bisha June Sandeep Reddy Vanga wuxuu rabaa Janaayo bilowgii sanadkan oo shaqada filimkan bilaa wuxuu arkay Barabas mashaariic ku tagan wuxuu dhahay niyo 5 bilan ku siinaa iska soo dhamay howlaha 5 bil wali ilaa hadda wax dhamaada male Raja Saab ma dhamaan waliba Sandeep Reddy Vanga waa perfectionist wuxuu jecel yahay atooraa intuu qabto oo look gooni ama qaab gooni special intuu u sameeyo filimka uu ku jilo marka waxa la Barabas hadda waa inuu shaqooyin ka soo dhamaada Sandeep Reddy Vanga marka sidoo uu rabo wax uma socdaan inkastoo Barabas hadda u ballan qaado u dhahay saaxiib June ama waa helaysaa May shaqada waa guda galeynaa sida uu dabcan la soo xigana marka waa arki doona sheekadaas meesha ku dambeyn doonto dhinaca kale wararka waaweyn waxa qaybkeed Priyanka Chopra Jonas teamkeeda BR media ayaa xaqiijiyeen in la shaqeyn doonto Hrithik Roshan filimka Krish Forn ka soo muuqan doonto horaanta 2026 ee shaqadiisa bilaaban doonto HR wuxuu heshiis la soo galay kambaniyada caalami ah yaashaad filimada maalgelinayaan iyo shirkado Hollywood oo dabcan filimka VFX ka tayan doona maalgashi ku sameyn doonaan Priyanka Chopra waa saaxiibtiisa wuxuu dhahay markii ugu horeysay waa aan director noqon doona mas'uuliyadda san qaatay ku soo laabo filimkan yaa iloobi kare dabcan 23 sano ka hor BC Hrithik Roshan filimkii Jadoo sida u jiraan inaba caadi ma koymilga meesha ka soo bilaabatay oo dabcan daawadayaasha qiimo badan markaas ee Krish koymilga sheekada ka soo bilaabatay Jadoo iyo Britisin 2006 BC ku soo birtay oo ay dabcan sameysay Krish 2013 Krish 3 ka soo muuqatay haddana waxa la The World of Krish gabadhan ku soo laabanaysa saaxiibayaal oo Hrithik Roshan way ka aqbashay mashruuca inay sameeyso marka Priyanka caadi u soo laabanaysa hadii filimka Asra Jamoli iyo Mahesh iska leeyna ka soo muuqanayso Atli Allu Arjun filimkiisa la hadalay inay ka soo muuqanayso haddana Krish 4 haday gacanta ku dhigto gabadhan waxa waa dhawaanaan Hollywood waxa ku mashquulshay haday soo laabat saddexdan film SMS waaweynka ah bis waa ayada magaalka qabsan doonto BC welcome back leenahay waa hadal hayntii xanta jirto dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ninka $1 waxa la shirkadda caanka ee Mighty Movie Makers wuxuu soo galiyay 65 karoor kadib markii Z Studio uu ku soo diray inay qayb ka noqdaan producerada filimkan sababta filimkan Mighty Movie Makers maalgelisay People Media Factory way la maalgeliyeen 100 karoor ayaa dabcan ka gashay sida laga warqabo waliba waxa la wararka qaar $1 filimkan wuxuu qaataa le saaxiibaal 50 karoor ay ku qaatay sameyntiisa gadaartu uu ku soo laab 8 karoor ku qaatay laakiin reerta lugu markaan 50 karoor oday ka duubtay sida la sheegay projectigan waxa gashay 100 karoor middle size project waay oo lacag fara badan hadda ma aysan gelin $1 lacag fiican ka qaatay si marka People Media Factory u garab istaaga $1 wuxuu sameeyay Z Studio aad isugu fiican oo gadaar iyo gadaartu u sameeyeen oo macaash wali ka heleen ay wuxuu dhahay filimkan dabcan maalgashi ku sameystay qayb ka noqda saadartay marka Mighty Movie Makers u baahnaa lacago maadaama filimkan budgetka 100 karoor ka gashay waxay sameeyeen marka Z Studio ku soo daray dhanka producerada markii filimka hadda la promote garanayo heesiisa ugu dambeeyay la soo bandhigay goosgooska xitaa Z Studio la soo galshay markii filimka uu bilaabanay xitaa producerada Z lagu soo diray ayagana waxay bixiyeen 65 karoor ay bixiyeen saaxiibayaal taas waxa la marka Mighty Movie Makers wax weyn ka kabeeso Mighty Movie Makers waxa la filimkan intaan tiyaatarka la saarin 85 karoor ay ka heleen oo ay ku jirto xitaa Netflix heshiis ay la gaareen haddana Jad asagoo la kulmay positive review oo si aan caadi ah loo amaanayo action bucket waxa la go'aanka iyo talada u soo jeediyay $1 Z in qayb ka noqdaan wax weyn ka anfacaysa Z Studio marka ayagana waxay ka faa'iidayaan maadaama 65 karoor ay baxsheen producerada lagu daray filimkan waxay ka faa'iidayaan saaxiibayaal in dabcan qaybta afindi lagu daawan doono satellite-ka ee qaadan doona saadartay ZTV ayaa laga daawan doona filimka lagu magacaabo Jad taasoo advantage u ah maadaama hadda action bucket uu yahay positive review la kulma satellite-ka markii la soo gasho bilood kadib ay meeshaas faa'iido badan ka heli doona sida muuqata maadaama Netflix OTT-ga laga gado marka sani marka Mighty lacagtu ka qaatay dhinaca kale kaga soo celishay maadaama Z uu producerada uu ku soo daray dhinaca kale Randeep Hoda doorkiisii Rana Tonga meel kastoo qabsaday wuxuu la kulmay ammaan loo wada dhanyahay qof kasta ammaan waa laadarka ugu saameynta badan sanadkan laadar ma ahan filimka Jad xalayna waa dhahay nimayo Jad daawada Randeep Hoda atoora waay filimkaas doorka la siiyay caadi ma aha sidoo u jilay qamarjinimada minaysinka xaasinimada ka muuqato character wuxuu qaatay strong gabadha xaaskiisa Regina Cassandrana Kamelita ayadana door kale qamarji qaatay marka $1 wuxuu helay laadar la mid saadartay Randeep Hoda dadku u mahad celiyay sawirkan baraha bulshada soo bandhigay asii $1 gacmaha taagay murqaha saadarteed wuxuu dhahay Master Sunny wuxuu dhahay Sunny Baji aadan kugu mahad celina wuxuu dhahay maadaama filimkan kala soo muuqday sidoo kale tan wuxuu dadka baraha bulshada jooga iyo kuwa tiyaatarka aad wuxuu dhahay magaciisa Rana Tonga ku hiisaayeen aad u mahadsan wuxuu dhahay tan waa dareen qiiro badan oo aan marnaba iloowi doono sida uu shaaca ka qaado wallahi ninkan waxa waa filimkan markuu aqbalay
waxbuu aqbalay wuxuu dhahay sidoo kale huge thank you for my visionary director waxaan aad ugu mahadcelinaa directorkii cabqariga aragtida sare leh Gobijando igu aaminay doorkan intensiga xamaasada iyo raganimada ku dheehan sidoo kale tilaabo kale igu hagoodhay sidoo kale tan wuxuu dhahay walking alongside Sunny Bajine was absolute blast inaan sanadoo la shaqeyn waxay aad wax blast oo wuxuu dhahay argagax iyo ka muuqato dhahay karti dhinaca kale wuxuu dhahay so down to earth shaashada markuu joogo sidoo ninkan ku garaacayo dhahay iyo u dagaalamay iyo markuu caadi u yahay isku mid ma ahan dhahay so full of power shaashada haduu joogo wuxuu dhahay full of fire waa laba qarxa laakiin caadi markuu yahay qof down to earth dhahay sidoo kale wuxuu dhahay waxaan aad ugu mahadcelinayo dhahay saaxiibkii garab taagna waa laadarka labaad Vinay Kumarsin oo wuxuu dhahay aan caadi ahayn iyo Regina Cassandra xaaskiis ku matalaysa filimka iyo Siyama Khair askariyada ahayd waxa tiin wuxuu dhahay you are talent wuxuu dhahay talentiga aan leedihiin iyo energy-gina wuxuu ka dhigo scene kasta filimka inuu live la noqdo indhaha aan laga qaadi karin ugu dambeyntii waxa uu mahadcelinayaa shirkadayda My3 Movie Makers iyo People Media Factory oo aamineen Jad kadibna wuxuu dhahay sheekadan suuqa keenan ayuu ka dhawaajiyay dhinaca kale tan wuxuu dhahay socdaalkii wuxuu raw oo mid oo adag challenge dib badan sidoo kale tan wuxuu dhahay aad iyo aad qoto dheer oo la saadarta wuxuu dhahay jaceylka faraha badan aan helay ma ahan waxaan soo koobi karo walaal Randeep hada wuxuu kamid yahay actoryaasha wal talentarka ee Bollywood ka aan taagasan laakiin ninkan inta badan Bollywood waa buusan laakiin film markuu soo galo kaalintiisu qaata Jatna waxa waa si fiican ninkan lagu amaanay booska uu qaat inaba caadi Marana Tunga mid kamid laadarinta sanadkan ciwaanada haysto kamid yahay saaxiibayaal marka sheekooyinkaas aqyaar soo qaadanaynay wixii kale soo kordhay waa isugu imaan doonaa xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh